bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay. Annaga waxaan nahay tiimka call centerka oo college kusoo dhacayaan, haddana at the same time data collectionka dadka xogta ururinayaan. Marka dasfar ilaa hadda waxaan soo gaaray xog ku aadan dadka la laayahay tiradooda. Marka dadka la laayahay waxay isugu jiri karaan dad la helay ama dad dhinteen ama dad still missing oo weli maqan. marka inta hadda aan hayno tirada guud oo la laayahay waa 25 waay. waxaa lab ah 22, waxaa dhadiga 3 dhadiga. tirada caruurta marka dadkaas inta caruur oo ku jirta waa 8, 6 lab ah iyo 2 dhadiga. tirada marka la helay intaas waa inta la helay waa 6. waxaa ku jiro oo nolol lagu helay waa 5 ruux. inta dhimatayna waa 1 ruux. 20 ruux ay noqonayaan marka tiradaas laga jaro. marka hadda waxaana soo gaartay warbixin kale oo xog in yani isbitaal Madiina ay yaalaan ilaa iyo dhowr meyd ay yaalaan. waxaan hadda rabnaa inaan sadab gareeno mobile teamkaas rabnaa inuu isbitaal ka tago in la waco numberska aan ka haynay dadkoodii la'aa inaan wacno isbitaal Madiina yimaadaan kadib arkaan meydkii haddii ay dhahaan dadkan waa dadkii naga maqnaa in la siiyo meydkooda ay dugtaan. meydad loo aqoonsan waaye oo ilaa hadda wax soo doonta lahayn tirada guud noolama sheegin, laakiin waxaan rabnaa inaanba hadda team asaasno oo mobile team oo isbitaalada tago si hadhowtii maaragtay macnaha dadkaas markay meesha yimaadaan isbitaal Madiina yimaadaan ay u arkaan dadkoodii haddii ay yihiin dadka ka maqan dadka hadda meesha yaala meydka si ay u qaataan. haddii la aqoonsan waayena marka dee gobolka banaadir wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu macnaha duugo hadduu ilaahay raado insha Allah. tirada guud ilaa ay haddartaan oo dhaawac rasmiga nama soo gaarin oo aan diiwaanka waxaan ka warsugaynaa medical teamka oo hadda ku maqan isbitaalada markay yimaadaan markaasaa la heli karaa tirada guud ee dhaawaca iyo tirada dhimashada rasmiga ee macnaha ay hayaan ay xogta ka soo ururiyeen. ilaa ay hadda waxaan reportka ku haynaa in la qaaday ilaa iyo 15 ruux. والله طبعا horta anaga ruux walba team walba shaqo leeyahay. anaga teamkanaga oo data collectionka waa inaan ururinaa muxuu ahay xogta dadkii maqan oo la waayay, dadkii ku dhintay, dadkii ku dhaawacmay, halaas anaga leenahay. laakiin authority kale ma lihin oo aan dad wax ugu qabano ama saasoo kaleento. gudigu uu ka balaaran yahay haddii cabasho jirto waan gudbinaa oo dadkii ku habboonaa u gudbinaa. dad waxaa jiro oo team go'aano sameeyo go'aano qaadanayo. marka kulley dadkaas unba anaga cabashadaan gaarsiinaa ayaga go'aan ka qaata. marka wallahi dadka horta way isugu jiraan dad waxaa markii nambarada la baahiyay dad waxaa jira soo wacay raba muxuu ahay dadkoodii inay ogaadaan meel ku ogaadaan. dad waxaa jira cabasho wato oo isbitaaladii yani localka ama privateka tageen lacaga badan la weydiiyey, laakiin ra'iisul wasaaraha khayr mahad Allah ka gaarsiiyey wuxuu go'aan ku qaatay in ciddii qaraxa ku dhaawacantay inaan isbitaal ama private ahaado ama under the government ahaado inaan waxba la weydiinin oo si toos ah loo daaweeyo. marka dad way jireen soo waceen oo rabaan inay donation sameeyaan. marka ayagana waxaan leeyahay kulay muxuu ahaa gudiga waxay ku tala jiraan inay sameeyaan account-ka oo gudiga gurmad qaran account-kaas wixii donation la sameynayo oo deeqa meeshaas bay ku soo dhici doontaa hadduu ilaahay raado insha Allah. laakiin wax numbers oo nambarada dadka ay soo wacayaan inaysan lacag ku soo tuurin taasna waan u sheegnay ayagana way qaateen. dadka deeq bixiyaasha kaliya ma ahan dadka localka dad dibadana soo waceen saasoo kale ayagana rabaan inay macnaha donate gareeyaan. marka dadka koolasha aan helayno way isku jiraan not only kaliya dadkooda raadinayaan dad rabaan dad inay gargaaraanna way ku jireen. saameynta inteeda la eg tahay waxaa aad saameyn noogu reebay baskii muxuu ahaa ardada saarnaayeen. run ahaantii waxaa aad noogu soo laablaabtay dad raadinayay muxuu ahay yarkii ka ahaa muxuu ahay Krishboyga, laakiin noo sheegeen in darawalkii uu meesha ku dhintay. dadkii darawalkana aad u raadinayeen. waxaa kale intuu jirtay in muxuu ahaa oo arrin aad yani looga murugooday ahayd ardayda ku jireen 2 gabdhood oo isla dhalatay. gabar way ku dhimatay, gabadhana kulley daawaceeda ugu darnaa. ra'iisul wasaarahana wuu la hadlay familkaas kulley waxaan rajeynayaa ayagana gabadhaas daawaceeda in loo qaadi doono dibadda.